waxaan ku dhahay xaaskayga soo kufso oo fal dhaqan xumaa kusoo sameey markaa kusoo sameysay video kasoo duub iina soo dir dil maba dhihinbo sasuqna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر أصحاب تقاليق أكون سودا وهذا يوتيوب كيغا شكرا لابا كتوس مركلة فيديو عصب أيكو كل منا هذا جانب كينا كو عصب تهاي فضلا سبسكرايب نوده فيديو نو لايك رأي وانكم هسنتين داوشادا فيديو يا شيدا سوى كلا waxaa idinku codsanayaa in asxaabtiina u share gareysiin si aan u helo asxaab fara badan oo ay subscribe gareysaa views fiican aan u helo waan idinkaga mahadcelin lahaa arintaas كنا صلي رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم sheekada maanta ay idin haayo waxay asalkeeda ka soo bilaabanayaan wadanka Ciraaq laakiin dhacdadu waxay ka dhacday wadanka Masar shalay video ma soo gelin daraadna video ma soo gelin maantana ina soo geliyay maribin wallahi waxa dareemayaa cabur zaayida sidoo kale dhuunta waa laga taqtaqinaya ma fahanto waxa ka dibada koobiya hore heesta irka dib waacawaya waxaas dhahay kullama moogtaa youtube ka ka dahdid kullama adigan amno hoos aadaday noqonay marka waxaas dhahay maanta shamaadaaba aad laba maalin soo duubin maanta wixii doonta ku qaatay ama cabursano ama xabeebsano adeeg ku taala fiida duuba isla maanta marka saasa ku soo duubaya marka insha Allah waxa laga yaabaa ina xogaa وانتي سي اسكو خيروسا المهم شاكدنا مانتي waxay ka soo bilaabatay wadanka Ciraaq laakiin dhacdada waxa exactly ka dhacday wadanka Masar wadanka Ciraaq waxa ku noolaa family ka koobna hooyo aba iyo wiil ee dhashay wiilka dhaxda ku jiro markii uu soo weynaaday waa uu diiday waxbarashada inuu wax barto dhan waa uu diiday laakiin wuxuu haystay fikrad ah in uu baxo wadanka Masar uu tago dibadana uu shaqeysto waliba wuxuu jeclaa inuu ka shaqeeyo dukaan lagu iibiyo dharka dumarka go'aankaas uu qaatay maalmaha kamida waa soo baxay wuxuu yimaad aabihiis wuxuu ku dhahay aab aniga waxaan rabaa inaan Masar aado oo dukaan dhar aan ka furto oo aan shaqeysto maadaama nin weyn aan noqday aabi wuu la qaatay fikradii wuxuu dhahay waa fikrad fiican okay uu dhahay waxa jir yar saaxiibkay oo Masar joogo waxa lagu raadinaa uu dhahay dukaan meel munaasib ah ku yaalo oo micnaha iyo ama area aanay ku badnayn dharka dumarka iyo dukaamo noocaas oo fara badan aysan ku oolin alaaga raadinaa uu dhahay dukaan si micnaha ganacsigaaga uu micnaha u najaxo uu noqdo ganacsi hana qaada uu noqdo oo kaleeto waayahay aabiis waa u baxay Masar uu aaday dukaankii wiilkiisa u soo habeeyay booski u soo raadshay xaafad fiican meel adi markaas uu islaa waa munaasib u soo raadiyay uu u soo helay dukaanna uu uga soo kireeyay wuxuu u noqday wadanka Ciraaq waxa hadana soo safray wiilkiisa wiilkan waxa la dhahay Xuseen waa uu soo baxay wuxuu imaaday wadanka Masar markuu imaaday dukaanka ay aabiis u kireeyo imaaday aabiisna sidoo kale wuxuu soo siiyay lacag adeeg ugu horeeyo oo ku keensado wiilka waa uu baxay waa uu soo adeegtay dharka dumarka ayuu nooc soo gaday waa uu keensaday meeshaas uu ka bilaabay ganacsigiisa maalinta ka dambeysay bisha ka dambeysay waa uu bulaalay wuxuu noqday ganacsi weyn oo macnaha aad u najaxay ayuu noqday Xuseen oo dukaankiisa dhex jooga waxa maalmaha kamida u soo gashay gabar da'deeda ay tahay meelahaas 20 oo kaleeto gabadha duka waxay fiirisay fasaatiinkii iyo dharkii meelaha u surnaan ka meeqa waa sida dadka caadiga oo kaleeto ay wax ugu iibsadaan oo kaleeto المهم markay gabadha waxay rabtay iibsatay oo ay sii bixisay Xuseen wuxuu siiyay lambarkiisa telefoonka warqad uu ku qoran yahay wuxuu ku dhahay lambarkan gabadha saan u fiirsay waxay tahay maxay iimaynaysaa ma waxa iimaynaysaa naagaha ninkaas iskala hadlaan ee fasaadsan ma iimood aniga dadka noocaas sameeyay walaaq la xuntaay mise waan ku fadeexaya wiilku wuxuu dhahay maya wallahi saa kamaan wadin aniga waadi cajabisay waa ka helay adiga lahjad marka wallahi laay waxa daranta lahjadiisa ina tahay lahjad qariib ama kasoo tira adiga ma tiid miya Masri ma yuudha aniga Masri mihi Ciraaqi ahay laakiin markuu wuxuu dhahay aniga waxa rabaa inaan dariiqa toosan aan ku soo maro ma ihin qof ka rabo inaan telefoon isku sheekaysan iyo waxyaabo noocaas qofkooda ka doonaya ma ihin ay okay dhahday aniga ehlaan leeyahay hadii aad tahay qof sida wallahi sida saxda ah sheeganayo waxay dhahday soo mar dariiq saxda waalidkayga way ma kadibna markaas kadib wada hadal ma bilaaban kara okay dhaha wiilkii gabadha waa iska baxday waa uu dabagalay wuxuu soo ogaaday macnaha space weyn u dhaxaysay kor u ka eeganaya markii gabadha gurigeeda u socotay ee gashay oo uu soo ogaaday wiilkan uu iska soo laabtay kadibna wuxuu bilaabay in dadka uu weydiiyo gabadhan magaceeda waxa ay tahay familgeeda waxa ay yihiin qaabkooda ayuu soo ogaaday dadka inuu soo weydiiyo wuxuu bilaabay inuu soo ogaado oo dadka weydiiyo المهم dadkii u weydiiyay dadka dhan waxay qireen gabadha inay tahay gabar wanaagsan waligoodna aysan wax xumaan ka arkin ilaa qeyr mooyaane
sidoo kale waalidkeedana waxaa loo sheegay inay yihiin dad fiican oo xaafidiin ah oo aada wanaagsan inay yihiin baa sidoo kale loo sheegay sidoo kale wuxuu soo ogaaday gabadha in magaceeda la dhaho iimaan wuxuu kale soo ogaaday inay barato biyada adaabta jaamacad la dhaho mansuur ayuu soo ogaaday intaas markuu soo ogaaday maalmaha kamid a wuu baxay wuxuu gargaraacay gurigii wuxuuna u tagay aabaheed waa lasoo dhaweeyey wuxuu dhahay adeer wuxuu dhahay gabadhaada iimaan ayaa arkay waana rabaa guuraana ka rabaa odagu wuxuu dhahay khayr allah ku siiyo wuu si fiican aada usoo dhaweeyey wuu la hadlay wuxuuna dhahay ma ogtay carabta hadalkooda dhan waxaa u badan duco hadday saratiin ilaahay saaha ku yeelo ayagana waxaa moodaa hadalkooda dhan inuu duco inuu ka kooban yahay umuddaa marka annaga soomaalida nasas maamahina المهم wuxuu dhahay soo dhawow laakiin wuxuu dhahay saan gabar laguma soo doontee waawi bacda salaani soo dhaweynaya duca iyo khayr wixii dhan markii kadib wuxuu ku dhahay saan gabar laguma soo doonto ad ehelkaaga aawi aabaha wuxuu ku dhahay aabahay ma joogo wuxuu jiraa wadanka Ciraaq laakiin wuxuu dhahay marka ugu horeyso uu imaado waa ku keenan u dhahay laakiin gabadhii waxaan rabaa u dhahay in gabadhan macnaha wuxuu ka cabsanayay in ma arkin oo qof kale uu ka guursado ka cabsanay sida ugu ku dhahay gabadhaada waa rabaa adiga wuxuu dhahay waay wuu iska soo baxay wiilkii shaqadiisu iska sii watay wuxuuna sugayay ilaa aabiis yom min ayam uu ku soo laabto wadanka Masar aabiya soo laabtay aabiis awal yom aabiis uu imaado wuxuu ku dhahay aab aniga waxaan rabaa gabar jirto aan ka helay gabadhaas magaceeda saasa la halkaas ay degan yihiin gabadhaas rabaa ina ii doonto aabi wuxuu ku dhahay maya istaji sugu dhahay horta marka hore aan soo ogaano gabadhan iyo wixii tahay family-geeda iyo wixii haday dad wanaagsan yihiin dhahay waa ku doonaya okay aabi astaan ciise wuxuu ka bilaabay inuu soo ogaaday family-gani waxay yihiin sidoo kale dadkii oo dhan waxay u sheegeen ilaa wanaag mooyaane wax kale loogama sheegin oo waxa la cidaas waa cid aad u wanaagsan sidoo kale gabadha yartaa waxaa dhahay waa gabar aad u fiican odagii wuxuu dhahay maasha Allah tabarakallah waaba gabadhii aan rabnay waa uu baxay odagii wuxuuna u tagay odagii kale gabadhi dhalay gabadhii loo doonay gabadhi markii loo doonay uu dhahay waa kan ani aabahayga ay dirtay aabeen hadda u imaaday soo odagii wuxuu dhahay dhib ma lahan anigana idinma diidayo dhahay laakiin gabadheeda ra'yigeeda soo ogaana waa baxay odagii gabadhiisa u tagay wuxuu dhahay wiilka noocaas kule soo doonto kule khabarka way heesaa ka waran gabadhi waxay tiri aabba inkastoo wiilka uu yahay wiil wanaagsan oo ogahay haddana ani waxaan rabaa inaad duruusteeda dhammaysto waxay gabar waxbarashada aada u jecel waxay dhadaa waxaan rabaa inaan waxbarashadeeda aan dhammaysto odagu waa soo laabtay wuxuu imaaday wiilkii aabiis wuxuu ku dhahay gabadhayda saasay dhahdaa dalabkeeda iyo shuruudeeda waxay tahay inay waxbarashadeeda dhammaysato odagu wiilka dhalaa soo booday wuxuu dhahay ha ka baqin taasuu dhahay anaa wuxuu dhahay ballan qaadaayo وحتى هادو ويلكيga diidu dha waxbarashada iyo lacagta anaa bixinayo dha inta jaamacadeeda ka dhimana anaa hada lacagta shubayo dha anaa dida waliba wuxuu dha waxa gadaa dha waan dejinaa guri khaasa shuko ama flight khaasa aan dejinaa dha si aysan ba wax macnaa ugu mashquul waxbarashadeeda iyo gurigeeda ay ugu mashquulsho macnaa family waxa lama dageyso dha halkaas ay dageysa okay odagu waa farxay gabadhii sidii loo sheegay khayr dhahada insha Allah sidoo kale وأصير دورشة السيدة كل عضي مهركي على عي أراسكي ندبع وحبوا ما دحين أو سويعين قبل ويا فرح هذا الدويل قروح بدن لعج هستو جام عدد وحبر شدد وقول هذا إن السي وذا وحي عركت قفك يكون من السي إنهش قبل يرتاح مالمو يركدب وحد أراسكي وحل عسومة دتك حافظ إيريا ضعنا العسومة وحنا نقضي أراس لغشاك دتك حافظ هذا يقان دقنو دن أراسك كشاكيان أيام ماشي قرع ما شاء الله تبارك الله والسكو فرح سنة قبل والق قلبي وحنا هذا قرقين كذا سيد هالكذا وحبر شدني كودي غير كذا ندي ويوجد مدير نكدب قبل ما كمل وحوجاتي إني أور لا أور كمل صباحي من كذا وشاكتي من كذا أنا هذا وفرحي أصلا ومسألة بلوده ودماتي واحد الشيء مركز الشيء قبل حوجا وحسوا وجهي علايس تبي إنه هالصو إنه جامعة أدو قرقي إنه كشقة صو جابس يرى إمادة جابس كمركو إمادنا ويل كان حسين وحب لعبة إنه حوجا ماركينه ودريم إنه حاسس كمشغول سنت هاي إنه السيد هراء هن طبعا السيد هراء ما أهانا سبق في جامعة هذا بيبيريس هستو قرقي شقة السويس حوجا المهم حدريم إنه كبيس كريه حاسس كدب وحب لعبة إنه ماركينه ومالها أو luuq oo galo inuu gabdho kale to dad qof kasta oo dukaankiisa imaadana naagta dukaankiisa imaada lambarkaas uu siiyaa naagaha dukaanka sidoo kale markay imaadaan xarakaad ad waxyaabo aqlaaq xumaha ku sameeyaa dukaanka sumcadkii oo dhan waxay ogaadeen dukaankan wiilka inuusan wiil fiican ahayn soo baxday oo dadka gabdhaha waxa la dukaankiisa imaado aqlaaq xumo la sameeyaa sidoo kale to lambaradiisa saa u qeybiya
maalmaha kamid ah waxaa imaaday gabar eeda saaxiibteeda waxay tiri war ma ogtahay maya soojkaaga sidaas u sameeyaa oo naag walba imaada cilaaq ula leeyahay naaguu la hadlaa naagaha dukaankiisa imaadana waxaa lagu wada xamanoyaa inuu wax qalaaqun si qaab daran ula dhaqmo micnaha gabadhi waxay dhahday wax kastaa way dhici karaan laakiin adiga ma waxaa rabtaa gabadhina saaxiibbay ahay waxay tahay inaan saaxiibbaan nahay naftaan oo dhexaysa waa ogaay laakiin waxay tahay ninkayga uguma diri kartid ninkaygana ma aha qof noocaan sameey gabadhii albaabkay ka burisay albaabka markay ka buriso ay tiro bax dhaafay dhahdaa ninkayga ha igu dirina almuhiim gabadhi marka maalintii dambe waxay is dhahday gabadha warka kuu sheegaysid inaad burisad mahayn horta ma soo ogaatid adiga hay waayahay way baxday maalin gabadhii oo ahayd iimaan waxay soo labisatay cabaayad iyo tarxad insheerna waa soo xiratay xilli dambe oo habeena oo ma arkin xilliyada dadku ku yar yihiin dukaanka bay u tagtay dukaanka marka u tagtay sidii gabdhiga kale waxay bilowday inay wax weydiiso kan meeqa waa kadib waxay aragtay ninkiyooba show gabar walba imaado sidaa ku sameeyaa usoo dhawaanayo raba inuu ma arkin wax la sameeyo ku dhadhago saa markii wartay in sharki iska feeday tarwariyaa ma adiga ma basaan anaaba waa aamini waaye ma noocaana tahay dhahda woo isku naxay hadalkii ku dhegdhegay gabadha way qeylisay wuxuu dhahay qaygu qeylan inuu dhahay hadda igu qeylanin habeen subax gurigeena ku wada hadlaynaaye gabadhi way soo baxday guriga markay imaado furkay ku tuuratay qof xunaa tahay akhlaaq aan lahayn maxay tahay waxa lagaa sheegaya waa run qof kastoo dukaanka soo gala adiga wixii faraha la gelaysaa almuhiim wuxuu dhahay wuu adi inuu saasabo marka warka sii batay ila meeshana mogtaa shaydaana saas bam uu saa u riixoyaa marka sii hadalka uu sii batay bahal rabaaxshaa indhaa uga soo jeeday markaasuu nawaaqlaa xunta dhulkay ku dhacday way iska istaagtay qolkeeda gashay inay ooydaa bilowda way oysay haddana waxay isdhahday aabbahay aa u sheegtid way iska aamusta aabeed umaysa sheegin way shabay iska dhahday shib markas hadal macnaha waxay tiri gurigaaga wax ka dhacay banaanka u saaran cidna hala wadaagayo ninkaaga dadkaa ku fadeexeen inay isdhahdo way iska aamustay markay iska aamustay ninkii wuxuu sugaayay inuu aabaheed imaado ama walaalkeed imaado ama familgeed imaado markuu arkay inay waxba kadib imaanayso cidna u sheegin sheekadiis meeshii uu ka bilowday wuxuu waxay harta ha samayso المهم دمركي وأمبوس كده مشاحاي قار لهدلاي قار حتى جوجل داف ولا سميناي أصوي إحساس كجوب كأننا إكو حنتان إنه يوقفحن كبربا وحو سمي علاقة زائدة لسمي إني ما سجيكو ذا شاكستان إني وضع خلان إلا مركي دم جواناس وزي زايد وجعلادي أو كهلي هير ومركي دم كفكر إنه مدن فرو إيمان وعنق وياس إنه إسكفرو سو جواناس وجورسل كبر كلمة قاعدة وحال لها إيثار وحو تجي وحكو لها ولا أنيجا وكاهلي وحن روا إنه كجورسنا وحين هذا الجورسة محمد لكن ما أذيك وناق قبتي باني جورسنا يسا ما يتر ما لقي يابين هذا إن أنا كون نقضه حاسك الله بعد إن نقضه الجميع هذا الكيو كنا حيوة وصابح أبي سوي ماذا أبي اسمكوا ماذا وحدا أبي أنا محاربة إن فرق إيمان إنا فرا رباونا أبيس وحدها محادع سبب محاك فرودا من قوانا الأخلاق ذا بدن أو في عن أو وحدها بيبقى هو يديس محاك فرا صاير وحدها أبيس قوانا ويلكا أو نشي ناوح برش آذو سواي وإيقا مشغول شيء دي أنا وحدها سان ربي يسودو من ما مادام إيقا بيسكرود أنا وأسك فراونا أولا وحدها والله مفري سدونا إن هذا إيمان فرين ناكفي عن ميلي سدونا هدا فرتدنا هانتذا إذا يكورغي يوحنا بنانك أذا أبحسدونا إيمان لكورغا جوغي سونا saas markuu dhaawilku waa isku naxay waa uu kasoo tagay aabiis wuxuu imaaday gurigiisa asoo caraysan oo gabadhan u xiraaqsan u imaaday wuuna ku qasban yahay muuhu calaa qoshnay ku tahay inuu kula noolaado bis wuxuu go-aan ku gaaray inuu dhibo in macnaha uu dhibo ilaa iyada ay dalaaqa ka dalbato macnaha inuu jixin dhan buu u sameeyo inuu ka daba wareego oo uu dhibo ilaa marka dambe ay dhahday fur markaas inuu iska furo go-aan ku gaaray gabadha sidii u dhibaayo uu xumeenayo waa si walba qaab kastoo xun qof ula dhaqmaayo gabadha marka dambe waxay dhahday bas aniga ma xamili karay dhahday intaan ifur markay dhahday haddana way la xumaatay wuxuu dhahay haddaa furtid oo intaa furiin kaasoo dalbad furtid xuquuqay kaa rabtaa aabbahana waa kii ku dhahay banaanka hantideeda kaaga saaraa macnaha huwa fikra mugta حسنا عبارة بناك وعكسارة هذا نعت أنت تصادر بطو فرين أفرتو عادي أو فرتبنا العقل حقوق أنا كهربتا سو أنا فكرة كلا تكنتا حسنا ما حاجة وأنا كسرتا قبل كلا إيثار فراك قاد أنا كاجي هو إسكالنا ولا برا إسكاف قبل أن نسي عادي ولا نولا هذا بوك أنك قاري
haddana way u dhawaa isbedela ayaa markii la joogay maalin maalmaha kamida buu albaabka ka baxay gabadha wiilkeeda yarka ah xanuunsanaa maalintaas cunugeeda xanuunsanaa habeenka inay la dhafraysay habeenkii markay dhafartay cabaari ag seexatay jaamacadda meesa aadeen asagaa markaa shaqu aaday shaqada aaday cunug yaraa ay hurda siinaysay waa ay soo baxday banaankiisa soo istaagtay guriga banaankiisa soo istaagtay macnaha qola ka soo baxday iridda imaadeen waxay aragtay naag duqa oo labisan shreer iyo cabaayad oo saalada dhexdeeda taagan macnaha qolka fadhiga taagan waxay aragtay qof dumar ah oo labisan cabaayad iyo shreer oo taagan qolka fadhiga dhexdiisa wayaabta waxay tiri yaa waay adiga maxaa aheeday dhahday maxaa waay eeda yaa waay adiga intii dhaysay qofkii intuu sharkas ka rogo waaba nin way carartay waxay isdhahda daaqadaha balaq ee qayli markuu arkay ninkan waa uu soo qabtay markuu arkay inay qaylin rabto oo isdhahay ama fadeexooda oo adiga lagu sheega ama lagu soo qabtay dadka kugu soo baxaan oo fadeexooday oo isdhahay xariguu qaatay meesha yaalay xarigu dhuuntuu jiq uga sii gabadhi waa u ceejay ilaa ay nafta ka baxdo naftii ka baxday way dhimatay ninkiina wuu iska cararay waa uu baxay wax yar kadib waxaa soo laabtay wiilkii oo Xuseen ahaa markuu imaado wuxuu arkay xaal cunugii ooynay horta hoos ka soo maqlay kadibna wuu imaaday gabadhii dhulka taalo gabadhii uu kiciyay wuu arkay inaysan neefsanaynin markuu arkay inaysan neefsanaynin askartu wuxuu dhahay isoo gaara xaaskayga dhimatay fadlan isoo gaara uu dhahay wuu qeeliyo askartii meesha imaaday askarta markii meesha imaaday gabadha meesha waa laga qaaday waxaa la geeyay qolyaha oo meydka baara aa loo geeyay meydka markii baaro faraheeda cijiyaha waxaa laga helay DNA laga helay qofkii macnaha la dagaalantay oo rabtay ay xagxagato iska celinaysay DNA laga helay kadibna sidoo kale waxaa la baaray kaamiraadkii waxaa laga arkay qof baayid iyo kii wato oo soo galay guriga ninkaana ka baxay qofkaas soo galaa la arkay qofkii markii la fiiriyo dhaxta waa arkay markii la fiiriyo qofka ما أهم بوقف نين عادي منين يناقص كسعد ما أهم وقت نين عادي وجف وحوق له كل قلبي هي بساق لي إلا وحانو السمية مركي لا أركب أسكرت واي بحين نين كان ماشي هنسك وينو يا وحده يا الله قبلي هو التعسير هذا اللي قيدت كنا كسوقيب قالوا والسك آسي مركي لا آسي أسكرتي وحي بحين وحي آذين سوق مركا تجان إريدا وحي السورة هذه الدكان بالقف نين أو عبايد ينشارك قطي هذه الأركب qof marka ganacsatada kamid ah suuqa dukaanku yile wuxuu dhahay qof nina oo markii igu horeys aan arkayo baa wuxuu dhahay iga gatay cabaayad iyo nashreer wuxuuna dhahay waxaan rabaa cabaayad iyo nashreer ana ila eg oo wuxuu dhahay maqaskayga oo ila eg aniga isii dhahay ana wuxuu dhahay waasi wuxuu igu dhahay xaaskayga ana ay dhir jeeda ana dharka ila eg xaaskayga uu leeyahay marka xaaskayga u gadaaho igu dhahay halkaas ay askarta macluumaad ka heleen macluumaadka markay ka heleen waa ay bixeen waxay sidoo kale waxayna hayaan ninkan fariisay hayaan oo waxa laga helay gabadha maxaa la dhahay cijiheeda laga helay Soomaha DNA-giisa waa ay bixeen waxay tageen guriga qofka dambiilaha ee gabadhan dilayo noqdo ma taqaana wuxuu noqday nin la dhaho maxamed cajalati nin la dhaho maxamed cajalati oo ka shaqeeya meel banjar ah aan baabuurta iyo waxyaabahaas lagu hagaajiye ka shaqeeyo ayuu noqday ninkii la soo qabtay markii la soo qabtay oo la weydiiyay wuxuu dhahay fariis DNA laga qaaday DNA-giisii iyo DNA gabadha laga soo helay wixii dhan way istaabaqeen dukaanka ninkiina sawirkiisa markii la tusiyay wuxuu dhahay ninkaanu ahaa saas markii askarta ku akiidiyeen waxaa la dhahay hadal maxaa u dishaa la gabadha marka wuxuu dhahay adiga markuu ogaaday in wax walba cadayntii lagu hayo wuxuu dhahay imaqlu dhahay askaray ani kaliya dambiga ma galaayo dhaa ninkii kaleeto oo Xuseen wiilkii ahaa meeshaan iska ooynaya maal wuxuu leeyahay alla iimaan maxaa iiga tagtay oo ku hay dadka dhan way wada tacsiyayeen waa la ooynooyaa waxaa dhooyay alla qofka dhaalimka ah maxaa u moodaa in nashaydan ilinka ma dhamaata alla maxaa u moodaa makriga uu sameynayo qofka markuu dambiilaha uu yahay المهم نينكي ماشان اسكو انو يا كدبنا نينكي مركي لسو قبتا لا maxaa u dishay gabadhan wuxuu dhahay aniga kaliya dambiga ma galaayo dhahay waa leela galaa u dhahay sheega alla wuxuu dhahay wuxuu sheegay hadal askarti ee dadka ka nixiyay kaasoo wuxuu dhahay aniga waxaa lacag isii u dhahay waxaan isgaran inuu dhawiilka Xuseen la dhaho oo marar fara badan saaxiib camalna ma helo laakiin si fiican isku naqiino dhahay illa maalmaha kamida inuu ii imaaday uu dalab iga dalbaday oo igu dhahay waxaan rabaa xaaskayga inaa تكتب وحاسكيga ay soo qaarajisad camal aan rabaa
saasa oo lacaguna isiyu dhahay anigana wuxuu dhahay deymo fara badan la igu lahaa qofkaas basiidka oo miskiinka u jeedid baana wuxuu dhahay markan gurigaas anigana qaadan sidaasana amarka ku fuliyay masaasa ayaa lahaa waa la soo baxay xuseenkiyo meeshan daraamo jilaay ma arkin oo ilinta ka dhamaatay aan soo qabtay kala la sheekh bilaasha daraamada oo jiloosa daraamada soo dhamaatay soo baxaa la maxkamadda la soo taagay almuhiim markuu ogaaday inuu soo ma arkin meel uu ku fakto aan lahayn oo lahaay ninkiin uu hadlay buu taagan yahay wuxuu dhahay maqlu dhahay waaruu dhahay anaa ka dambeeyay dhahay sabta anigana wuxuu dhahay ma dhihin uu dhahay dil iidlan ma dhihin uu dhahay waxaan dhuhu dhahay bax gurigayga tag albaabkan asaa u furay gurigayga tag aan ku dhuhu dhahay waxaan ku dhuhu dhahay xaaskayga soo kufso oo fal dhaqan xumaa kusoo sameey markaa kusoo sameysay video kasoo duub iina soo dir ama wuxuu dhahay anaa isla markaas guriga gashtay waxa kadib kaa daba imaana waa idinku arkaa waa sukiin qabana adiga iska fako markaasa wuxuu dhahay aan sukiin arkaa waxaan rabu dhahay marka inaan dhaho qofkan khiyaanole way qiyaamaysay kadibna aan maxkamadda gey aan furo intaas basaan rabu dhahay ee wiilkan dil maba dhihinbo sasukuna nacam wuxuu rabay in gabadhan video laga qaado sawir ama asaga uu dul imaado ninkan uu kufsanayo uu dhacdaa ka dambeysay oo markaa ani baxaa niman wacataa sidaas daraadeed uu ku furu rabay oo lacagna looga qaaday gabadhan xaqeeda si waxaas la dhihin gabadhan ay noqoto gabar diyuusada akhlaaq xun asagana uu sidaas u furo oo gabadhi kaleeto inaan guursado saasaan rabuu dhaha laakiin aniga dil ma dhihin asaa diloo dhaha ka waran diyuuska ugu weyn nin soo diray ku dha orad xaaskayga akhlaaq xumo kusoo sameey video iiga soo duuba ii keen marka weliba kaaga daran waxta wiilkan inuu gabadhan furo oo waxa alla waxay ka rabta intuu siiyo furo ayada iyo wiilkeedaba beelo meel dejiyo wax alla waxay u baahantaa uu siiyo wuu awoodaa oo midaas kaletana intuu doonto uu guursado uu nolosheeda ku noqdo wuu awoodaa oo qof dhaqaale haysto laakiin xaasidnimo ka waran iyo akhlaaq xumo because qofkan qof ilaahay ka baqaaya markii hore ma ahayn xataa markii fast gabadha la dilay dadka eriyada iyo maxaa la dhahaa suuqleeda kulli waxay dhaheen ninkan wax kasta ka suurtoobo ninkan saa akhlaaqda xun oo naag kasta saa ugu dhagooy asaa gabadha dilay laakiin aabihiis iyo hooyadiis idaacadaha soo fariisteen waxay dhaheen cunugeena akhlaaqdaas kumaanaan soo tarbiyeen inay dhaheen oo xataa waa lasoo handaday dad badan waxay dhaheen adaa dishay adaa dilaa la dhahay waxaas oo dhan aabihiis xabadka u garaacanaya laakiin ma oga in cunugiisu dhaalim mujrim weyn uu yahay oo wax walba ay ka suurtoobaan almuhiim heerkaas markuu saas markuu dhahay oo dhahay anaa u dira ninkan laakiin ani wuxuu dhahay soo dil ma dhihin ee waxaan ku dhuhu dhaha soo kufso sawirna iiga soo qaad asaga marka isla markiiba uu soo laabtay wuxuu rabay markuu ninkan tago asoo kufsanaya inuu ugu dul imaado kadibna intuu dhaho anaaba arkay buu rabay inuu soo furo gabadhaas kala tugursado ayadan waxaan dhiba dhan dhicin intuu iska furo xaqeeda siiyo haddana wuxuu ka cabsaday aabihii baa wuxuu leeyahay gabadhan meel kale miga aadaysa gabadhan intay joogaysa adaa banaanka u bixisa hantaas banaanka looga bixinayana waa u diidaay calaa kulli xaal wax kasta way dhiceen gabadhan waqtigeeda intaas ku ekaa labadii nin maxkamadda lasoo taagay maxkamadda markii lasoo taagayna labadoodaba waxaa lagu xukumay dil toogasho ah in labadoodaba la dilo saasay xukunka dadka dhan ugu qanceen waxayna dhaheen waa loo aaray gabadhaas xaqeedii waa ay hesho masaakiinta saasana lagu dilo ga dhahay xaaskayga iisoo kufsay sawir iga soo dilo akhlaaq xumadaas wuu ku baxay leh hadduu iska furi lahaa bal asagu nolol kale inuu samaysto gabadhan sita rafaadkaas dhan wuxuu u maraa inuu gabadhaas kaleta guursado asoo awooday inuu iska guursado laakiin hadda walaa gabaruna guursanin walaa hantidiibuna siyaasan wixii dhan waa laga dhex saaray waa la dadalaba aakhira loo dirayaa soo maaha allahuma najina yaa rabbi musiibo kasta oo dhan walba nooga imaanaysa mid dhan walba ka timaada ilaahay naga badbaadiyo fiidiyaan intaas ku ogyaa waxaan idinka codsanaynaa asxaabtiina la wadaagtiin oo u sheergaraysiin intaa fiidiyan lamida ku kulmeynana waxaa idinku dhaafaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu